magacaygu waxaa la dhahaa ayaan shiradaagada waxaana ka imid deegaanka Gurceel gobolkaas baan u dhashay gobolkaas baadihiisaan ku koray oon ku barbaaray reerkanaga maxaan ku dhahaa reer iska reer miyi oo maxaan ku dhahaa iska tabar daran waay marka aabbahay xoolihiisa marka waqtigiisii horeeto reer xoolo labay ahayn xoolahooda waa la dhacay maxaan ku dhahaa aabbahay ilmihiisa horaa loo laayay marka aniga xanuunkaas markaan soo hana qaaday oo igu dhacay meeqa sano jirtay markaa camal markaas waxaan jiray da'da 17 meelahaas 17 sano ilaa 16 marka nin baan guursaday ninkii markaan guursaday 2005 bay ahayd ilmaan qaaday ilmihii markay 3 bilood yihiin bay iga soo dilmeen haddana sanadkii dhexdiisa markii taurka baan qaaday ilmihii way iga soo dilmeen jirkii baan isbedel weyn aan dareemay xanuun ah xanuunkaas waxaa waa jirkii dhan oo idibaaxiyay jirkii oo iska bedelay culays fara badan xanuun fara badan ilaa ciribta ilaa madaxa oo jirkii macnaha dibaax baan ka dareemayaa dhiigga caadada oo dumarka ku dhacay iska bedelay meeshii aan dhiig arki jiray waxaan ka arkay biyo iyo wax oo maan dhiig sax aan ahayn kadib haddana waxaa iga soo baxay gar 2006 ilaa muddadaas xanuunkaas muddo dheer buu iska watay ay 3 sano markuu ninkii qabo xooray waa isbedeshay nin baad noqotay marka aniga qof dumar ah u baahan oo ilmo iyo taran aan ka helo saas daraadeed aniga qof ku qabi karta maahi nin baad noqotay waa isbedeshay mana isxamil karna waa iska ka furaya diyaar baan ilaahay ba qadartan ay keenay ma hadda iska furta wax dhib ma lahan baa sidii baan ku kala tagnay oo iska xanuunsanaa jiray sidii baan ku joogay haddana mar kale baan nin guursaday anigoo si u xanuunsan ninkii haddana isla markiiba waa iga cararo wuxuu yiri naagna baa tahay aniga naag baan mudo waan ku qaldamay baa midabta kooray oo xanuun dhagax tuur iyo wax maxaan ku raadayay aniga markaas aan ku qanacsanayn ma bulshada dhexdeeda kala kulmay islaan dhaqtarada baan la kulmay waxaan xanuunkan baan isku arkay waxaana maxay tahay adaa dhaqtarada waxay tiri waxaa keena hormoon isqaldamaad keena dibadana maxaan ku dhahay meeshan waxba loogama qaban karo ee dibad ma aadi kartaa waxaan aniga reerkana waxaan waa reer iska tabar yar dibadna iyo ma diri karaan maxaad ugu la talin lahayd aniga dibad baan kugu la talin lahayd haddii aad awoodaada leedahay dadkii baan la fistay waxaa la yiri hay'adahan qaxootiga iyo meelahaas iska aad baalayda qaxootigan soo aaday markaan qaxootiga imanna aqarreer baan ku soo degay nin abtiga degan ninkii markaan ku soo degay abtiga wuxuu yiri wuxuu i karkaar markaas ma soconine wuxuu i keen dhagaxley marka imid adii kaar hore kama helin maxaan ku raadayay blog aan ku noolaaba bulshada dhan baa hal mar isku kacday xaalay naagnina timi dhagaxley dhagax tuur maxaan ku raadayay waxyaabo tiro badan fayl la ii soo galay aniga dhan dhagax tuur miyaa istaagan waay hay'adii MSF warkayga maqashay waxay igu tin blogii aan deganaa blogii aan ku soo degay waqtiga ay keenay hay'adii way qaado baawurba ii kan istaalka la geeyay form baa la buuxiyay isla markii waxa la geeyay xawjibay computer baa la isaaray isbedel weyn baa ku hayay waa la qaad isla markiiba MSF iyo hal cross isla socda ay qaadeen waxa la geeyay istaalka gaarso marka computer la isaaray haddana Nairobi baa la igu soo baaray waxa la yiri nin iyo naag baa waxaan ku raadayay waa makaankaaga meesha taashi tarankan waxbaa kaaga go'an baa la yiri marka saas daraadeed way soo celisay hay'adda MSF iyo waa la keenay MSF baa la keenay MSF way soo celisay marka ay soo celisayna waxa la dhahay waxba lagama qaban karo wadankan saas daraadeed waxaan ku gudbinaynaa UNHCR qof raga lama noolaan karo qof dumar ah lama noolaan karo marka qof waxaan ahay nolosheedu ciriiri ku jirto mustaqbalkeeduna uu mugdi galay oo haddii jidka maraya waxa la leeyahay waa tiin naagtahay mar waxa la leeyahay waa tiin ninkahay dhagax tuur iyo dagaal maxaan ku raafaa badan kala kulma bulshada dhexdeeda
dadka walaalaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ummadda islaamka intii danqanaysa waxaan ka codsanayaa in macnaha gargaar oo caafimaadka la ii fidiyo maadaama aan ahay qof dhibaataysan oo aan awoodin inaan dibad aado xanuunkayguna uu daawo leeyahay daawadiisina ay wadankan u leeyahay baan codsanayaa marka waxaan codsanayaa walaalaha mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinayaa mustaqbalkaygan mugdiga galay in mugdiga laga saaro oo maxaan ku dhahay noloshayda ciriiriga laga saaro ilaahay baa ciriiriga iga saari kara waxaan codsanayaa